adduunyadan waa mid isku badbadasha xawaasha dadka kuwa ka hoos maray ciidda ayaa inagu soo booqda riyada sidoo kale waxaa jira dad ka koreeya carada aanan naga qaadin salaanta waxaad degaysaa qasri waxaana ciriiri kugu noqonaysa nolosha waxaad degaysaa buush ama cariish yar allahna wuxuu ku waasicinayaa laabtaada waxaad ahaanaysaa mid cad waxaana kugu hareeraysanaya mugdi waxaad ahaanaysaa mid madow waxaana kaa ifaya nuur waxaad lahaanaysaa walaalo waxaadna noolaanaysaa kelinimo waxaad ahaanaysaa midaan lahayn walaalo hareerahaagoy joogaan walaalo waxaad arkaysaa asxaab kaa duraya dhabarka waxaad kalood arkaysaa cadowgaagoo badbaadinaya noloshaada waxaad arkaysaa dad maalqabeena ah oo wax laaluushaya waxaad kalood arkaysaa faqiir wax sadaqaysanaya sidaa daraaddeeda alle wuxuu ku magacaabay adduunyo ee ma aysan ahaanin mid sarraysa isxaankaagii iyo dhaqankaagii lama ilaabayo marnabaha ka shalaynin wakhti aad qof ka farxisay xitaa haddii uusan mudnayn markii laga duro dhabarka kuwa wanaagsan waxay ballan qaadaan inay aargoosaan goortay u timaaddo fursaddu iyadoo ay u saaran tahay saxan dahab ka samaysan waxaa kor u dhawaaqaya damiirkooda cafintuna waxay dhex ahaatay qadarta ha xugmin mustaqbalkaaga hadda nebiyaduba waxay raaceen ari kadibna waxay hoggaamiyeen ummad waxaa hareerahaaga imaanaya dayacitaan iyo murugooyin maadaama ay salaaddu daryeelkeeda kugu weynayn salaadduna waa mid kugu hagaysa liibaanta xaya cala alfalaax u kaalaya liibaanta sidee buu u liibaanayaa qof aanan tukanaynin waxaad xor u tahay inaad nacdo ficillada dadka balse xaq uma lihid inaad ku tumato sumcadda qofka aad nacday sug farajka sida inaad ballan la leedahay oo kale haddii uuse soo daaha farajka micnaheedu ma ahan inuusan imaanaynin qadarta allana waxaa ku hoos qarsan naxariis annaguse waxaan nahay qoom degdeg badan waana iska caadi inaad aragto qof inuu helo wuxuu ilaahay u qoray oo nimcad ah ee adigu deganaanshiyo muuji waxay weyddiiyeen xaakim yaad aad u jeceshahay walaalkaa mise saaxiibkaa wuxuu yidhi ninkii xigmadda badnaa walaalkayga waxaan jeclahay goortuu ii noqdo saaxiibkay oo kale saaxiibkaygana waxaan jeclahay goortuu ii noqdo walaalkayga oo kale oohintu ma ahan inaad u oyso qof dhintay balse oohintu waxay ahaatay goortay ku dhaafto towbada ilaahay ayaan dembidhaaf weyddiisanayaa waana u towbadkeenayaa dheh rabbiyow hadduu jiro xaasid nacab inuu i arka anigoo faraxsan ilaahayow ku manaysa sacaado iyo farxad ilowsiinaysa inuu arrintayda ku mashquulo annagu waxaan dhex ahaannay imtixaan wakhti walbaana waxaa dhammaystirmaya qaaditaanka warqadaha waxaana dhammaanaya wakhtigaadii uu alle kuwa xadiday ka digtoonow warqaddaada kana tag warqadaha kuwa kale